kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal markasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka Samareeb TV qodobada warka Samareeb TV ugu door koron ayaa waxa kamid ah arrimaha dibadda Mareykanka oo fariin u dirtay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble Muuse Bixi oo jeediyay hanjabaad lama filaan ah oo la xiriirta aqoonsi raadinta wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya oo ku baaqday in degdeg loo joojiyo dagaalka ka socda gobolka Hiiraan Ra'iisul Wasaare Roble oo kulan soo dhaweynaa la yeeshay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo Muqdisho gaaray karagta duwanaanta dimuqraadiyiinta ee dagaalka Falastiin iyo Israa'iil beesha caalamka oo bogaadisay hadallada Ra'iisul Wasaare Roble ee agaasanka shirka daawadahdana cusubta nagu soo biir subscribe sar gambalka nafur si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay aan soo dhigno waa maalinimo Sabtiya taariikhdu ay ku beegan tahay 22 May 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kala dhameystiran xafiiska arrimaha Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ugu baaqday madaxda Soomaaliya ee la filayo inuu shirka ugu furmo Muqdisho inay ka faa'iideystaan fursadan oo ay dhameystiraan heshiis doorasho qoraal kooban oo xafiiska ka soo baxay ayaa sidoo kale fariin loogu diray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo hadallada la soo gaaminaya iyada oo loo sheegay inuu haysto taageerada buuxda ee dowladda Mareykanka qoraalka Mareykanka ayaa daba socday qoraalkii maalin ka hor ay soo saareen xubnaha beesha caalamka ee madaxda Soomaaliya loogu digay inay lumiyaan fursadan magaalada ayaa waxa wali ka maqan madaxweynaha Hirshabelle Cali Guulaabe oo la filayo inuu gaaro maanta oo Sabtiya waxaana wararku ay sheegayaan in shirka Afisiyoni uu si rasmi ah u furmi doono maalinta Axadda ee 23 May 2021 shirkan ayaa waxa uu shirkii hore ugu duwan yahay iyadoo uu shirka hogaaminayay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble meeshana ay ka baxday hogaamintii madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la saaray mas'uuliyadda ee fashilka shirka waxaa aad u sareysa rajada laga qabo in shirkan uu guuleysto iyada oo loo heelan yahay in heshiis la gaaro iyadoo aysan jirin xifaaltankii hore ee u dhaxeeyay madaxda dalka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi oo hadalka jeedinayay munaasabadii lagu xusay 18 May ayaa sheegay in Soomaaliland ay diyaar u tahay inay dhiig badan u daadiso i'tiraaf raadinta sidii kal hore ay ugu daadisay madaxbannaanida ay ku doodo Muuse Bixi ayaa carabka ku adkeeyay in yoolka koowaad ee Soomaaliland uu yahay inay hesho i'tiraaf xilli ay u dabaldegaysay sanad guuridii soddonaad ee ka soo wareegtay xilligii ay ku dhawaaqday madaxbannaanida ay ku doodo ee aan aqoonsiga caalamiga ah haysan Soomaaliland ayaa iyadoo ku doodaa inay tahay dalka madaxbannaan Soomaaliya inkastoo aysan helin i'tiraaf caalami ah haddana waxay u dhaqantaa sidii dalka madaxbannaan jamhuuriyadda taasoo dhowr jeer xiisad ka dhex abuurtay Soomaaliland iyo dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii maalmo ka hor dagaaladii khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ku dhex maray laba beel oo walaalo ah ayaa arrintaasi waxaa ka hadlay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya wasaaradda ayaa ugu baaqday odayaasha dhaqanka culmuldiinka ganacsatada dhalinyarada ururada haweenka iyo waxgaradka in ay kala shaqeeyaan mas'uuliyiinta ka socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Hirshabelle joojinta dagaalkaas dhex maray beelaha walaalaha ah ee wada dega magaalada Beledweyne meydadka ugu yaraan 24 ruux ayaa laga soo saaray guriga nin horey uga tirsanaa booliiska dalka El Salvador qabuuraha la helay ayaa laga yaabaa inay ku jiraan meydad gaaraya ilaa 40 oo intooda badan loo maleynayo inay yihiin haween dhaxaad ah iyo gabdho yaryar sida ay saraakiishu sheegeen soo qufitaanka dhammaan meydadka ayaa qaadan kara muddo hal bil ah booliiska ayaa aaminsan in helitaanka meydadkan uu shaaca ka qaadayo sirta ka dambaysa dil qarsoodi ah oo socday muddo ka badan 10 sano wadanka El Salvador wuxuu ka mid yahay dalalka qaaradda Latin America ee haweenka ugu badan lagu laayo dumarka ayaa loo dilaa sababo la xiriira jinsigooda oo kaliya Hego Anestanda Osera Jeves oo 52 jir ah ayaa bishan lagu xiray magaalada Jaljuba kadib markii lagu eedeeyay in uu dilay haweeney 57 jir ahayd iyo gabadheeda 25 jir ahayd ninkan oo ahaan jiray askari ayaa mar hore lagu sameeyay baaritaano la xiriira dambiyada jinsiga ku salaysan wuxuuna qirtay inuu dilay laba haween ka ah laakiin markii ay kooxda baaritaanada qotada dheer sameeya tageen gurigiisa oo qiyaastii 78 kilomitir ama 48 meel u jira magaalada caasimadda ee San Salvador waxay ka heleen ugu yaraan 7 god oo ay ku jiraan meydad kuwaasoo qaarkood laga yaabo
in la aasay ilaa 2 sano ka hor. Saraakiisha booliiska ayaa sheegay in helitaanka qabuurahan guriga ku qarsanaa uu caddeen u yahay jiritaanka shabakad dilalka fulisa oo ka howlgalaysay ugu yaraan 10 sano. Ugu yaraan 10 ruux ayaa hadda wajahaya dacwado. Dadka la tuhunsan yahay waxaa ku jira rag horay booliiska ugu tirsanaan jiray, kuwa ka tirsanaa militariga, iyo shakhsiyaadka ka shaqeeya tahriibinta dadka, sida uu sheegay Morocco Araza oo ah agaasimaha booliiska El Salvador mar uu la hadlayay wargeyska Lebanese. Tacadiga ka dhanka ah haweenka Latin America oo ka mid ah dilka loo geysto wuxuu ka sii daray intii uu socday cudurka safmarka ah ee COVID-19, sida ay sheegeen kooxaha samafalka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in maalin walba 12 haween ah lagu dilo Latin America. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni oo shalay galab gaaray magaalada Muqdisho kana qayb galaya shirka wadatashiga qaran ee dhamaystirka arrimaha doorashooyinka ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Ra'iisul wasaare Rooble ayaa kulan soo dhaweyn ah iyo is-xogwaraysi la yeeshay madaxweynaha Puntland oo saacadii la soo dhaafay gaaray magaalada Muqdisho. Kulanka Rooble ayaa daba socday kulan uu isla habeen hore la yeeshay madaxweynayaasha Jubbaland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo horey ugu sugnaa magaalada, oo la filayo in uu ka furmo shirka arrimaha doorashada ee ra'iisul wasaare Rooble uu hogaaminayo. Madaxa Midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegtay in sidoo kale Midowga Yurub ugu deeqayo 100 milyan oo irbidood oo ku talaalka ah dalalka dakhligooda hooseeya iyo kuwa uu meel dhaxaad ka yahay dabayaaqada sanadkan. Hadalkan waxay ka sheegtay shir lagaga hadlayay COVID-19 oo ka dhacay magaalada Roma, caasimadda Talyaaniga. Mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee talaalka sameeya ee Pfizer BioNTech ayaa madasha ka shaacisay in ay 18 bilood ee soo socda qiimo jaban ugu samayn doonto dalalka saboolka ah 2 bilyan oo irbidood oo talaalka ah. Shirkaas ka dhacay magaalo madaxda Talyaaniga ayaa looga gol lahaa in lagu helo qaabka ugu habboon ee la isla dubridda karo dadaalka caalamiga ah ee ka hortagga safmarka. Qaaradda Yurub waxaa laga soo saaray 2 nooc oo talaalka ka hortaga safmarka COVID-19 ah. Labada nooc ayaa kaydintiisu sahlan tahay ee haatan wadamada saboolka ah ee dunida saddexaad loogu deeqay ee ay ku helaan habka la yiraahdo COVAX. Waa AstraZeneca. Shirkadda AstraZeneca ee soo saarta dawooyinka ee fadhigeedu yahay UK oo kaashanaysa jaamacadda Oxford ayaa soo saartay talaalkan looga hortagayo fayraska corona dhammaadkii sanadkii hore. Talaalka sidiisaba wuxuu unugyada difaaca jirka u diyaariyaa sidii ay 80% uga hortagi lahaayeen inuu ka dhaco qofka COVID-19. Natiijooyin ka soo baxay hay'adda caafimaadka dadweynaha England NHS waxay ku salaysan yihiin dadka da'doodu ka weyn tahay 80 sano oo ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee laga bilaabay talaalkan. In ka badan 10,000 oo qof oo mutadawwiciin ah oo ku sugan dalka UK iyo dalal kale ayaa ka qayb galay tijaabada talaalkan. Marka la isku daro, wuxuu difaacayaa jirka oo baranaya sida loola dagaalamo fayraska dhabta ah haddii loo baahdo. Si ka duwan talaalka Pfizer oo ay tahay in lagu hayo meel ka qabow 70 centigrade, talaalkan Oxford waxaa lagu kaydin karaa qaboojiye caadi ah. Tani waxay fududaynaysaa in la geeyo talaalkan meelo badan. Tijaabo lagu sameeyay talaalkan ayaa mar sababay in laga hakiyo guud ahaan caalamka kadib markii dadka sida mutadawwicnimada ah loogu tijaabiyey ee dalka UK uu jirkooda ugu falciyay si ka duwan sidii la rabay. Waxay ahayd markii labaad oo hakad la geliyay talaalka ay iska kaashanayaan jaamacadaha Oxford iyo shirkadda AstraZeneca. Afhayeen u hadlay shirkadda ayaa sheegay in dadkii ka qayb galay tijaabada talaalka la dhigay isbitaal lagu sameeyay baaritaan madax bannaan. Intaas aynu ku saafmeerina warkii aad kala socoteen Samareeb TV. Intaan warkan war dhan ku muddo waxaa idinka tegaynaa sida ay nabadgelyo.